موضوع محاضرة لو إعلامي وكاسر الله شيء يعني شروط شريعة وأيول لكتي دور الشوينك يعضينت مسألة كوسابسن دور الشوينك ومسألة معاصرة حيكم التحي قاب كان هذا الله سميه نوازيش مستجدات كمسايش عصب كعصب عالم الإسلامي مسايش نوع عصب كلا واحد إلى النوازل بالله يقانا مستجدات بالله يقانا أريمان نوع عصب كلا أنا البيلاد هاي لوغو نقضه وكاجتهاده وكهالله وأعليا قواعدي أصوشي شريعة وأعليا وضدك أهل العلم الراسخين تا لك عبسك يا أقونت الوؤق يا هاي ضدك أسام سايش نحن وكلا إسكاله والله قدم بيا مسألة كوسابسن دورشوينك لوا قيبود لوا waxaan uga hadli doonaa mixwar ama laba qaab qaybta hore waxaan ka hadlaynaa doorashooyinka gelitaankoodu xukunkoodu muxuu yahay qaybta labaadna waxaan ka hadli doonaa hadii la yiraahdo way banaan tahay maxaa shuruud iyo dawaabid ah oo loo baahan yahay in la ilaaliyo dadka mas'aladan ka hadlay waa saddex daraf iyo dhexdhexaad daraf ama dhinac doorashooyinka way baneeyeen ayagoon dawaabid iyo shuruud iyo qawaacid u dejinin bay si mutlaqana isaga baneeyeen darafka labaad waa mid ka soo horjeeda oo doorashooyinka kuwa dooranaya iyo kuwa la dooranayaba waa gaala yiraahdeen diinta waa ka bixin kuwaasina waa kuwa xadka dhaafay oo qullaad fi hada albaab waa baabkan iyo masaladan waa ku xajirsan yihiin xadeedii bay dhaafeen wasadka dhexdhexaadkaana waxa weeyaan waa sida culimada muctabariinta ay qabaan oo ah mas'aladan banaanideeda iyo banaani la'aanteedu waa mas'alo hoos galaysa waxa loo yaqaano siyaasada sharciya baab la yiraahdo abwaabta kamida fiqiga ama abwaabta diinta kamida oo la yiraahdo siyaasada sharciya siyaasada shariicada halkaas laga hadlaa siyaasada shariicada ku abtirsatana مسائشيدا إن بدن أو كمدا ومسائل اجتهادية مسائل نصعة ومبضنا لكن إلهي تبارك وتعالى قواعد الضوابط بشرعات ودجسي بدن كيد waxa loo daayay inay culimadu ka ijtihaadaan oo kolba wixii soo kordha horumarka bini aadamka isbedelada iimaanaya ayaa inta badan loo daayay culimada وسطك مسألة سد حد ما وجه هذا الشيء معتبرين مروحي كلا قاضيان عالم الإسلامي هي مسلمين تلاقت تربدين مسلمين تلاقت تربدين هي النجو كلا كنول دول لقى بدين وقالوا كجا بدن تاه marka laga hadlayo mas'alada doorashooyinka waxad moodaa mudnaan khaas ah la siiyaa oo ka duwan markay doorashooyinku ka dhacayaan caalamul islaami oo kale laana duruufta dadka laga tira badan yahay muslimka ah duruuftoodu siyaabo badan bay uga duwan tahay duruufta caalamul islaami iyo muslimiintu meelaha ay ku badan yihiin warka murtidiisu waxa weeye مسألة ومسألة من مسائل السياسة الشرعية مركلبات علماء وحيلين حكم كأي قاضنيس
marka la soo xooriyo la isku soo ururiyo xukunka ay qaadanayso wuxuu ku xidhan yahay waxa ka dhalanaya ma maslaxada ka dhalanaysa badan mise mafsadada iyo dhibka ka dhalanaya badan maxay si xaqiijin kartaa oo muslimiinta u soo jeedi kartaa sida marka la yiraahdo waxay hoos tagaysaa qaacidada la yiraahdo qaacidatul masaalih wal mafaasid maslaxo iyo mafsado dhib iyo dheef in la isu miisaamo oo kafada la saaro ma dhibkeeda badan mise dheefteeda badan halkaas hoos geynaya sidaas daraadeed baa xukunkeedu iskhilaafaya oo meelaha qaar koodna laga yaabo inuu xalaal noqdo banaanaado meelaha qaar kood inuu mustahab noqdo meelaha qaar kood culimada qaar kood bal way waajibinayaan qaar kood meelaha qaar koodna ama xilliyada qaar kood ama xaaladaha qaar koodna inuu xaraam noqdo ayadoo mar walba la fiirinayo lagu saleynayo masalada maxaa ka dhalanaya maxaa laga dheefayaa maxaa laga helayaa maxaa dhibka iman kara halkaas ay inta badan ay culimadu masalada ku saleynayaan hadii aynu soo qaadano maalan gaar ahaan aqaliyaadka maadaama mas'ala haddaan ka hadlayno ay ku saabsan tahay muslimiinta minority-ga ee laga tira badan yahay hadaynu soo qaadano fataawida culimada qaar ka mid ah مثلا المجمع الفقهي الإسلامي والرابطة الرعسن وحكى للشراء فتاوي فردئة هي فتاوي جماعية فتاوى فردئة وحويان هل شيخ ومسألة انتو فيريا وباري الرأي كي شيء فتاوي الجماعي كان وحل إلى هذا علماء سوى ذا الشيرة مسألة انتو بارين هل رأي كي شيء marka fataawi jamaaciya la yiraahdo majaamicda fiqiga hay'aadka fatwada yaani muxuu ah hay'atul bahthiga yaani waxa isu tagaya 30 caalim 20 caalim 50 caalim ka badan mas'alada baaris baa lagu sameeynaya marka hore siday u dhacdo baa la tawsiifinaya wasfigeeda iyo takyiifkeeda fiqiga baa marka hore dal mutakhasisiin loo diraya تكييف فقهي لو سمينيا سي مسألدني u dhacda arintan see loo sameeyaa marka arintaasi la soo qeexo suuradeeda la soo cadeeyo ya marka waxa la wareegaya culimada fuqahada la wareegaya fiqiga sharciga ku takhasusay markaas suuradii la soo cadeeyo waxay saarayaan qawaacidi sharciga iyo adiladii iyo maxaa dhib ku jira maxaa dheef ku jira halkaas ay marka xukun ka soo saarayaan marka marar fara badan dhinacyo fara badan way kaga fiican yihiin fataawida jamaaciga midda fardiga oo de intaasoo ra'yi baa isugu tagay intaasoo baxthi baa isugu tagay intaasoo baadhis baa wadaagtay waa la rogrogay siyaabo kala gedisan baa loo niqaashay halka ruux waxa ka hoos bixi kara iyo jamaacada waxa ka hoos bixi kara iyo xoogaa isku mid baa طيب hadaynu majmu'ul fiqh al-islami oo kala raabitada raacsan oo mas'alada ka hadlay labadii 17 fatwadan hayo weeye waxay yiraahdeen موضوع ومشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية مسلم كإنه كقيب قالوا دورشوينك ضد قال أنا أي كل شراء وطن كنا وطن مسلم معه مركي دقيستين علماء وحي الله صوبان دقي وبحثها بارستي لكياني مناقشات كي ضودي دحمرتي سيدي مسألة اللي رقرقي intaasoo dhan markay fiiriyaan culimadii meesha isugu timid iyo mushaarikiintii waxay soo saareen go'aamada waa majmu'ul fiqh al-islami waxay yiraahdeen kow musharakatu al-muslim fi al-intikhabat ma'a ghayri al-muslimin fi al-bilad ghayri al-islamiyya min masaa'il as-siyasa ash-shar'iyya muslimku inuu ka qayb galo doorashooyin gaalana ay la jiraan wadankuna uusan muslim ahayn مسألة نوعاسي وحي كمتها مسائش اللي لو يقانو السياسة الشرعية سياسة الشريعة كو أبترسة هل كاسي مسألة قشاء التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد مسائش النوعاسي وكان الحكم كذا وحو كالصوبحا
marka la isgarab dhigo maxaa maslaxa ah oo wanaag oo faa'iido ku jira maxaa mafsadiyo dhib iyo darar ku jira sidaas la isu miisaamaya meeshaas marka laga soo saara xukun والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال مسألة إن لقى فتوى أو لقى جوابنا ويكل الدوانانيس زمن كل الدواناشيسة ميلها كل الدوانان تودا حالتها كل الدوانان تودا بحكم كوكو كل الدوانانية بمعنى مروى بنانانيا مر حرام بنقونيا مر واجب بنقونيا مر مستحب بنقونيا حالتها كل الدوان إيه حالة والباء ميزان كذا خاص كه أي مسألة ذو كحران تايب إليه توا قدب كوبات قدب كلا بعد وحي هذا يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم وحاؤبنا المسلم كه هايسته حق ودني نمو وودني طيب بلد أن مسلم أهين بوتشوغا لكن وودني wuxuu haystaa مثلا sharcigi wadanka waa wadani waxa u banaan bay leeyihiin muslimka noocaas al-musharaka fi al-intikhabat an-niyabiyya inuu ka qayb galo doorashooyinka baarlamaanka wanaxwiha iyo wixii la mid ah طيب maxay tahay sababtu lighalabati ma ta'uud bihi musharakatu min al-masalih ar-rajiha maxay yeelay waxa badan masaalixda ka dhalanaysa ka qaybgalka ayaa ka badan haddii la iska daayo faraha laga laabto oo aan laga qaybgelin masaalixda la helayo iyo haddii laga qaybgalo masaalixda la helayo waxa badan masaalixda la helayo marka laga qaybgalo masaalixdii bay wax ka sii tilmaameen marka waxay yiraahdeen waxa kamid ah masaalixda mithlu taqdiim as-sura as-sahiha al-islam in la gudbiyo oo mujtamacaadka kale loo gudbiyo suurada saxda islaamku leeyahay oo dadka yani la dooranayo ku wax dooranayo suura sax islaamka gudbiya wadifaac an qadaaya almuslimiina fi baladihi baladka oo ruuxu ku nool yahay arrimaha muslimiinta inuu difaaco oo kii baarlamaan galay kii meel kale galay inuu mujtamaca iyo bulshada muslimka xuquuqdeeda iyo arrimaheeda inuu difaaco hadii la faraha laga qaadayo difaaci way marka طيب وكذلك وتحصيل مكتسبات أقليات الدينية والدنيوية دناها هي مصالح ضدك لقد تربدين دناه هذا الدينات هي دناه هذا الدنيا بإن الحصيلية وضدك على لو وداعي قاعد ولا لقى وداعي لوجا صدعية حق هذا واللوجا إلاليه مصالح ذا ساكمل وتعزيز دورهم في مواقع التأثير in la xoojiyo kaalinta ay ku leeyihiin meelaha wadanka looga taliyo ee saameynta ku leh talada wadanka yani waxa weeye golihii baarlamaanka golihii wasiirada iyo fulinta riyaasadii meelaha wadanka go'aankiisa laga qaato inay saameyn ku yeeshaan oo dowr ku yeeshaan oo la xoojiyo taana way xoojinaysaa masaalixda ku jirtay tilmaamaya والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل إيوه ضدك إنتودا وحوغا دحدحاتك عدالة كسو عضاي أن سي حق شركة أهين وحتى أمدها كلا إن لا تعاون ولا إسكاشضو سي حق إي عدالة لو استاجي معنا وذلك وفق الضوابط الآتية marka masaladii maxay ku fadhiisiyeen majmuuc al-fiqh al-islaami wuxuu masaladu waa banaanta waxayna ku banaantahay maslaxada ku jirta ka badan mafsadada ka dhalanaysa laakiin ha banaanaatee inay banaan tahay waxay yiraahdeen waxay ku xiran tahay dawaabid in la helo dawaabida dib baan ka sheegi doonaa marka laakiin xukumka iyo fatwada majmuuc al-fiqh al-islaami waata in ay banaantahay waa culimadu fara badan oo masalada baaray waxa kamid ah culimada arintaasi ka hadlay waqti hore oo waliba dhaweyn iyada oo kale suuradeeda oo kale ka hadlay al-allama Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di يعني كن صدح بقول صدواتني لحدي بقول waa sheekha iska leh kitaabka tafsiirka la yiraahdo تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان markuu sharxay aayada quraanka rabbi tabaaraka wa ta'ala qisadii nabiyullah shu'ayb iyo qowmkiisa قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ولولا رهطك لرجمناك
haddaanan kooxdaadiyo tolka aanan kugu ilaalinaynin mar horaan dhagax kugu dili lahay laakiin reerkaagiyo tolkaa baan kugu badbaadinaynaa nebi shucayb bay saa ku leeyihiin qowmkiisa aayaddaasuu marka ka qabtay faa'iido ka bixiyey الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وحليه فوائد كجرت آيات وحا كمذا أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة إلهي المؤمنين توحوا كدفاع أسباب فربضا قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها إني قار أوجيهم بارعك ارتقار أن يحبك أوجيه طيب وحكم إذا بوليه أسباب إلهي ذاتك مؤمنين تأو كدفاعه وشركة كدفاعه وحكم إذا قبيلة وضع من مركة قارك الصواب والنقط وضن كوضة حتى قالبها النقطين وضن كيسة يدد كلن لها قبيل كيس قالبها هذا مر إلهي أو استعماله أو دفاعي الروح مؤمن سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو قيس كيسي رير كيسة إلهي هو أديتيني دفاعا وأديركي أبو طالب يسوق ربتاك إلى أنتو كدمني إن الله لا يؤيد هذا الدين صومه بالرجل الفاجر وبمن لا خلق له سيد النبي صلى الله عليه وسلم من مركز قاركود إلهي الدين كوحو استعماله يددكي سينو كدفاعه نين فاجرة أما قال أما أن إلهي يكتس النصيب كل هاي لكن إلهي با استعماله مركز وحو يليق حتى قالبها هذا كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه سيد إلهي النبي شعيب وإلهي قوم كيسة سبب كيسة الله تبارك وتعالى وكجا إلهي إنه قوم دبلوج يستوي الرجمية هو ذي مركب وسي وذي فعلى هذا أبو مركب ماشى أن وصعد السوق فعلى هذا أبو لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم للدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم وحليه هذي مسلمين أي كشقيا مسلمين تقالوا كوه سنول وقال أي أتلسو يعني هوستو ذا كنول وكم إذا الرعية دول هذي كشقيا أو أي سميان إني كرديجان دولة جمهورية إني كرديجان بدل كي دولة كريستيان أما كنيسة ما مش أنت نقول لها دولة جمهورية ده هو النظام قال لي بحبك كسعته جمهورية ده إني كرديجان جمهورية ده سو ضدك أفراد يا شعوب وأي حقوق ده هي مدة الدين جاي مدة الدنيا ده هذي مسلمين تدولة ده قالوا ده السيدة كردي كران لكان أولى تاسع في عمبول إني ساك الشقية ودولة دي أي كشقية إني نقطة جمهورية أي حقوق ذي الدين دي الدنيا كهلا تا هذي بكشقين كران ويفي عن تاي وحي كفي عن تاي إني السود ديوان دولة عن حقوق ذي الدين دي الدنيا من السنين يا إني قعمها الله بصان ويلهنا وحبك قيب قلبين دولة كقيب قلبين وسير كان نقول مين برلمان كذا كقيب قلبين دور الشيء قلبين سيدي لدونه هنلاقو تليو يا وسيدي لدونه هنلاقيه سيدا إني يلهدان وحقوق ذي الدين دي الدنيا بس كوبا بعضه وحكرون إني دلال كذا بحيان بولين والدولة كردجان جمهورية كردجان أي حقوق ذا كهلا سيدا سولية هاي أنتي لباب إن لها ولقد لها ضد قال هذا أديك طيب نعم بولي إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين مسألة جرت مركا يسكو خلدان ضدكو مركي دولة إسلام لهيلي كرو ومسلمين تو دولة إسلام أي هيلي كران حدي لهيلي كرتام مرنبكو متشرين لكن ما الله ياوي لما هي ماشا وحا لك لدورنا يا لما الشربا لك لدورنا يا لبدا الشرك يا عرصبا لميزامية سيداس درادد إن هاد أفكرتو سيدي إيادو دولة إسلام أي كوتا لسوكالي وأبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي بن أبي طالب خلفاء الراشدين يا دولة الإسلام كادو هوس جواكالي أضو فكرتو فتاويدا دا إيا أراد أدونا عقلية النوع عاسا كوسا ليساهي وحويان واقعات كدعسنت واقعا وواقع شراء وواحد شراء وأرن أبورا مسلمين توحي كقوان كران كبدل كران ويرين شركا شراء وحمكا خفيفين كران مصالح دودا وحمكا إلاشان كران دب ما يسكدفعين كران حقوق دودا مهلي كران
masalada laga hadlayo taa iyada waa marka wuxuu leeyahay dawlad muslim haday heli lahayd xukuumtu muslim ahaan lahayd taas waa iyadu hadalba kuma jireen way macna laakiin maadaama aysan jirin فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة مر هذه دولة الإسلام واي وحلو إيمان يا مركا إن دين تيا الدنيا ده وحي لا إلاشن كرو لا إلاشن تاسع مركا إيمان مرتبة تاسع مركا لو سود دقيقة طيب وحكم إذا رجع مسألة ذكى الله الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله السجنة فتوى شرطة فتاوي دور ليه لكن مدة السوق هذا يوحوي إذن محو هاي وحا قرطي مجلة لواء الإسلام أي قرطي وحنا كسو قوري الشيخ مناع القطان في كتاب معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية أيو كسو قوري فتوى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وحلو يدي الشيخ محو هاي سائل باوحو يدي عن شرعية الترشيح لمجلس الشعبي قولها بارلمانك ما اللي يسور رشيحي كرا وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والإخوان المتدينين لدخول المجلس يعني كارك دور الشذا ما لقادن كرا سدتك أهل الخير كا الدعاة قولها بارلمان كاللوغليو ويمرك الدين تأيو ومدى هو أذيقان جوابت الشيخ وحي سيدا وحولي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى النبي وحولي عمل كاستنية وكحرية روح والبنوح النياد ليه لذا فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب سيداس دراديد وحلبك مكشر إن قلها بارلمان كشعبك لقى قيب كله إذا كان المقصود من ذلك هذه أجدد يضن تأرنت لقلي أي تاي تأييد الحق إن حق لحوتشيو عدالة هي حق إن لحوتشيو وعدم الموافقة على الباطل شيء باطل إن الله وافقين لأقولان لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى هاي لي مصلحة كجرت أنت سوحوي حق الله لنا يو هي الدعاة خير كدتك أقوي رسول الله بير كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخابات الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله كذلك إن لقاتك كارك دور الشدة هديد دد ونكسن لغو دورنا يو أيضنا ابن مليبود تانا وحويان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله طيب وفربدين علماء وحكم ذا الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله السجن واحد لو يتيه انتخاباتك يدور شوينك كويت مركي دعيسي أيا لو يتيه مسألة ذا محان صمينا بلا وحكو جواب سيدا أنا أرى أن الانتخابات واجبة يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرا لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم أهل الشر أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر أتباع كل ناعق فلا بد أن نختار من نراه صالحا وحول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وواجب إن دورنه عدي أن خير أرقنه ونعينه محايا لذاتك أهل الخير كأه هذي أرنتاسي كفريستان يا بوس كقال يوا سجوا الجواب الشيخ وحول ذاتك أهل الشر كقال يوا أما ذاتك يعني السلبيين النيجاتيف كان فائدة بالهين أو خير يشرطونا على الهين دني استياشة أو عد والبورد واقضنا إسكرع ساس ترى تدوح الوحى لقى مرمان إن دورنا عدي أن أرجنا إنه صالح يهي أو ماشن كوها بوين كانوا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله سيدو كله وحفتوا النوع عصو كلاله الشيخ عبد المحسن العباد علامة وحوها محدث المدينة شيخ النجيب وها إلى دوانولي حفظه الله تعالى وحا سيدو كله فتوا النوع عصله الشيخ عبد الله بن جبرين وكم إذا علماء ووينيد السعودية مملكة وحكم إذا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله رأيي مشهور كوحوي عنك فتاويدي سنة أبضنتها الشيخ الباني عليه رحمة الله إن أن قولياشا بارلمان كلاقا قيب قليل ساسو أبضن فتاويدي سو أبضنتها لكن أنت بدن وحو كعلايا ما دام إلهي شرعي سأن لغو حكومة إن دولة داسي روحك قليا لفتي سأيو فتنة وقبقيا مسألة لباد ويوحو لي فإذا لغا كيني كراير wuxuu marka kaga ra'yi bedelan yahay culimada kale oo uu leeyahay madaarta iyo mafaasida ka iimaanaysa ka badan maslaxada laga helayo iyadoo saaytay hadana
fataawidiisa qaar ka mid oo waxaa jirta muujinaysa inuu xaaladaha qaarkood ogolaaday ka qaybgalkeeda طيب waxaa ka mid ah مثلا fatwa uu ka dhiibay xilligii Jazaa'ir jabhatul inqaad nimankii la dhihi jiray Jazaa'ir doorashooyinka gali jiray xilligoodii ayaa sheekha su'aal la weydiiyay su'aashii la weydiiyayna wuxuu kaga jawaabay sida wuxuu yiri walaakin la ara ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج فننصح والحالة هذه كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط من هو أقرب إلى المنهج الصحيح الذي تقدم بيانه أقول هذا وإن كنت أعتقد أن هذا الترشيح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود كما تقدم بيانه من باب تقليل الشر أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء يعني مسألة وكسوها الله لكن هو جبجبي مركز دمبي وحكوا جبجبي ما أركبوا ليه هي واحد دي يا شعب كمسلم كان هديدتك إسرشحي oo raba in la doorto ay ku jiraan qaar islaamnimada la dagaalansan qaar muujisanaya inay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta iyo shucuubta muslimkaaba ay xuquuqdooda duudsinayaan oo dagaal ku hayaan ahzaab noocaas doorasho u taagan kuwa islaamiyiin ana waa jiraan oo ahzaab islaamiyana waa jira oo manahij kala gedisan leh yani dad muslimiin ah ama ahzaab yani wax way muslim ah oo islaamiyiin ah ayaa dhanka kala taagan oo ayagana raba in la doorto raba dhankana ahzaab diinta la dagaalamaysa oo calmaaniyiin iyo liberaaliyiin taagan oo iyagana in la doorto la raba in la doorto raba see la yeela marka gacmaha ma laga laabana wuxuu leeyahay sheekhu xaaladda iyada awil kullu muslim waxaan ugu nasiixaynayaa inuu doorto dadka islaamiyiinta ah kuwa xagga manhajka saxda ugu dhow manhajka saxda dadka ugu dhow inuu doorto ayaan markaa ku nasiixaynaya sababtu maxay tahay haddii la yiraahdo kuwa codka laga ceshado meeshii kuwii diinta iyo dadka la dagaalamayay baa iimaanaya wasaalixdii yareeyay meesha lagu haystay burburinayaan sidaas daraadeed yani wuxuu leeyahay uu soo waday warka oo wuxuu leeyahay in kasto aan i'tiqaadsanahay buu in intikhaabaad doorashada iyo tarashuxaas hadafkii loo baahnaa inuusan keenaynin laakiin waxaan u leeyahay xaaladan oo kale hal la galo waxaan u leeyahay buuri sharkay la yareynaya mafsadadii weynayd baa la riixaya oo la baajinaya sida daraadeed baa mid ka yar la fuul la sameynaya sida ay fuqahadu yiraahdaan Sheikh Albani Ali rahmatullah marka in badan fataawidiisa haba ku diida mas'alada laakiin mas'alada ma aha kama fiirinaya dhanka ah dadka galayna waa gaalo kuwa dooranayana waa gaalo sida dadka qaarkood hadda ay u dhigaan fatwada sheekh asaas ma aha sheekh wuxuu fiirinayaa wuxuu leeyahay nidaamkan aan ilaahay diintiisa dadka ku xukumaynin kii galay horta inuu fitnooba laga baqaya waa mid labaad inta badan faa'iido badan lagama dheefo mafsadada iyo dhibka ku jira ka badan niqaashkiisu halkaas oo maray xaaladka qaarkood dadka ishaya ay noqdaan dad diinta la dagaalsan iyo dad diinta taageersan ay noqdaanna fatwa noocaas uu kale wuxuu leeyahay markaas oo kale waa in nasiixadiisu waa in laga qayb galo haddaba waxa weeye inta waxaan u keenon ugu yara dheeraanay muhaadarada fataawida culimada aan ugu dheeraanay mas'alada waayahan dambe waxa soo baxay guruubiyo dadka muslimiinta ah kala dooranayo iyo wax dooranayaba diinta ka saaray oo yiri waa gaalo waxa isaga qasan dadka laba qodob waxa weeyaan waa jidayn ilaahay wuxuu san jidaynin la jida at-tahliil wa at-tahriim golayaashan baarlamaanka iyo sanadka iyo xalaalayn iyo xaraamayn bay sameeyaan mas'alada asal ahaan lagu haystana taa iyada way salka ay saarayso mas'alada iyo waxa la kale waxay culimadu kala duwayaan iyo doorashadu waa wasiilo كمان اللازم يصدر الشذا الروحي اللي دورتي إنه وحلاليه وحراميه ضوابط يكون إيمان دون تروح اللي دورنا يا ماشي تجي وحلو جبه هي إنه سميه ويكهل دونان إنه إسكيل عليها كم ذا
إن وح إلهي حلاليي وحرامين تيسا كقيب قالوا وح إلهي حرمي حلالين تيسا إنو عد كديبت بل وإنو كهري ماد تاوى عدي لدورني إيا محال لقد بوان لكن كما لازم يسو أنيق عدبان ديبتو وان دورتي إيا والي دورتي كما لازم يسو إن أنسميه حلالين إيا حرامين شريعة خلاف سنة لأن وين ندعي كرتا ما ندعي كرتا ما دام أين كلا لازم كرينين ولما مسألوه عن كلا فوق كرين أي سنهين مركز وحوي لما ده مسألة متبقوني بعلماء وجهلنا مسألة حلالين يا حرامين تو وحق إلهي وخالص هو حق إلهي ليه هو إذن ما فرق لين كرت وحن هو حلال إلهي بحلالين وحن هو حرام إلهي بحرامين لا برلمان ولا دولة ولا مضح ولا عدف ولا قضية قبيل ما فرق لين كرت إلهي بحق إسكال مسألة سوى مسألة عدوى وقرآن كي السنة عادية لكن تائية وحكدوان روحنا أنا نيجا دورنا يا وحن دورنا يا وما دورنا يا إنه دين تميل كجربه إنه إلهي حقي سو وطاب صدر دعه وما دورنا يا إنه حرام حلاليه وما دورنا يا إنه محو هاي حلال محو إنه حرام حلله لكن وحن دورنا يا إنه حقوق المسلمين تدفع إنه شركة خفيفية إنه محو هاي وحي لب مسلمين تكو إيمانا يكدفعيه إنه حقيقة إلاليه أرنتا سنانيك أو دورنا يا إسلام مركا تنكله إنه إسكا إلاليه إنه سن إسكا إلالين وهوس إسكا وطالوا إسكا وحو فريه هاي إنه سن وح شريعة خلاف سن أوسن كل دقائق هذا مسألة أين ساء كلا دوانين أو دور الشدة إيو حلالين تي حرامين تلما مسألة أو كلا فكسان هذين أهان لهين علماء ما ينسكوا خلافين هذي دور الشدة يعد لديبتو أي حلالين إيو حرامين لحكم تهي علماء المسلمين تسكوا بين خلافين حرام لماذا هذا البكم يبادين لأن النصوص تقعد وأنا إجماع علماء واسكوا فقسيين هذا بخلاف مسألة دني ماشي علماء كثيرين يان راسخين تا أهل الاجتهاد كا أقوانت الله قدم بيا وحي تهي مسألة وحي كثيرين يان دور الشدة يا وحى كلا دوان نتيجة أرنتن حلالين تي حرامين ملاحظة أمرك إن يعني وحوي إنه كبر الرنوال لك أمرمان أنت هذا المسألة كجسوا قد وقت دير بيوبهان تهي فاهين إرادة وبهان لكن وقتك كوبان ضوابط دانو سو قدو هذين النهاي ضد كان أقليات ضد كان لقيت ربنا هاي أو كنا مثلا ودماغ قالوا ذو كحوك بدنته نظام كماشة كتاليانا وصل نظام إسلامي هاي أحكام تلقوا رقمية قوانين تنتي إسلام كأيسنا هاي أنا جينا عين لقى مرمان تهي إن نوضن كي مشاركة إنه حقوق ضننا إلى شنو وحيد بإسكا إلى لأنه هو هاي أنه يعني الدور كان نجي كالين تنظر إن نقاض إنه أي لازم تاي لأن وحنا بني آدم ماشى كنول كعماه إنت الله أنه إسكافر فرديا وحي اللي ضننا هلا يدين كسم يسيد له هلا يدين لا تقوم عقل ما وحي آد عشان كرتوين هذا عشت وحي مصالح هذا لا عشان كرتوين هذا شرط طريقة أمري كرتوين هذا أمرته شرعته وين كودي دني لكن إسكافر فرديا عد هالديبين هذا ديبتنا قالتي يا برلمانك وحكو درسانين هذا كدر ستان قالتي وزير هذا كدر منين هذا كدر متان قالتي أنا كمركي اللي قبتنا وأنت أما عسكري إيتي ما دو أما هو أرجع سرادي سنتي ما دان أي قبتان وحبسك اللي يدقنا لينكي برلمانك الله صوت دورتي بانكو عرري يا عندي ورمان تهدي سكرير بينه هيني ولا شكاه والقلون من كان يقبل ورشالي كافر قالوا هاي أمورته الدين تبى كب حي هذا محدود يراني بعد لا يسكو حدود الثلاث سارت كافر كان مرتد كم حدود رازني وحي له هذا هو أبو طالب وكليده أبو طالب متقال أبو طالب قال بوها دعوذي الدين النبي محمد بوها ديجي قال لي وكل انتي مركنين كان برلمان كوتشيرة دولة كوتشيرة يوا كافر لكن أنا جاينو حبسي كيسو دايو محوها هاي وحوجا دنا هاي كوفو شدو وأبو طالب برينا النار تقلي أم حاجة قليوه وعقلية محوها هاي أنصحها يوم مركا مسألة سوى مسألة رصوت الماميو وغلو
مسائش waxay ku fiican tahay mas'alo walba in manziladeeda la dhigo waaqica markaa jira iyo duruufteedana lagu miisaamo laakiin inta badan masaa'ishani xamaas uma baahna xamaas iyo ficil iyo uma baahna waxay u baahan tahay rusuuq cilmi u baahan tahay haddaba culimada mas'alada baneeyay ee soo sheegnay iyo kuwa kale oo fara badan ba dawaabid bay u dhigaan dawaabid ay u dhigaan waxa kamid ah أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركة الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين ودرء المفاسد والأضرار عنهم وحاسكال مجموعة الفقه الإسلامي بهذا الكاسكال إنه الروح مشاركة يدور الشدك قيب قال يحط كتيبنا يعني إنه أقصده ونيده ودور الشدك قال يا أي تهي مسلمين تمصلحة ضوضة كقيب قال مسلمين تمصلحة أسوتشيد مفاسد iyo dhibaatooyinka muslimiinta ku iimaan karana ka hortag dibka fududeed dibka jira ma wada qaadi karno laakiin dalkan deegaankan muslimiinta diintooda adduunyadooda wixii dhibe ku iimaan karana codkaaga kaga qayb qaado inaad ka dafciso muslimiinta wixii maslaxa ee muslimiintu dalka kaga xidhanna iyo xuquuqdoodana in loo ilaaliyo helaan taa daraadeed baan anigu codkayga u bixinayaa oo doorashada u galaya marka niyadu waa inay tahay niyad saxsan wa kaynu soo marnay sheekh ibn baaz alayhi rahmatullah asagoo daliishanaya xadiidkii innamal a'maalu binniyat laba ficil oo isku mid ah ayaa niyadu kala duudaa oo midna cibaado ka dhigtaa midna gaalnimo ka dhigtaa كما سوقات مثلا هذا تصالي دسي نبى كتاب كقرآن كقاضي مصحف كقاضي ماشى سنتو جيبنان كابو مصحف كي جبي روحا مصحف كجبي مرنا وكو قالوبي مرنا أشر بوكيه وهالفعل هالفلوة ومرنا أشر لقيه ليه مرنا دين الله بحيه سيكسوري بكرتاوه مصحف كان جوجو أي روح مسلم كإيه إنتو قاضي إنه أسطورة أجوبية مصحف كان إلا إلاليو عثمان بن عفان باسمي صحابتي وذشوجة يقولون واقول راعين خلاف كما إيماني مصاحفتي عثمان واجوبي سي مصاحفة الله إلالي مسلم كان مصحف كيبو جوبي علشان مصحف خصوصا وضيع منه يا أشرب كيلي لأن النية دي سمحتها يا مصحف كإلالينتي سوا نين مصحف كنعب أو قرآن كنعب أو كوتشيس جيسا يلا دقالسن بعيل انتو قبتبو مصحف كي انتو قاضيبو هلكا كوكوبي ما قالوا بي يا مز ما قالوا بي يا وقالوا بي دينتو كبحية هل فعل أو مصحف لقبيئة بو نين الدين تكبحي نين أجر كوهل محاك الله صعيوة ورمحاك للدوي نية ذاك الدودي ساس درادد إنما الأعمال بالنيات لبض الروح عدك ليبيسا بالغاية بان نية ذا إنو ننا أجر كوهلو ننا الدم بكرع وإن مركا قصة كاغو النقضو مصالح ذا مسلمين تيضانو هذا عدكاغا كو إلالي ضرر كأي لبك كفضو ذا نية ذا وإن يهرت ميشا كو جرتوي كو ضابطك اللبادي وحوي أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين إن أي كغالب نقطه ملها مسلمين ملها ضوائن أبطه أن مشاركتهم تفضي إلى آثار إيجابية كقيب قال يندور الشوي إن أي كان يسفائدوي أو بوزيتيف وحل هذا إيجابيات إن أي فائدوي كهليان وإن ملها مسلمين تأبطته مسلمين تمركا علماء ضوضوا تقريبا مسايشن وكل علماء كادش علماء اسكلك وان كده حدي ملوه أبطو إن فائدة أن كهلين أي بدن تهاي دبك إن جسوا جارية فائدة ka badan tahay ومسألة صومرني مركزي وحويان غلبة الظن ملها غالب كه أو مصلحة أبطو إنه ماشى مصلحة كتير تهدو ملوه أبطو مركا ومشروع مركا وإنه ملوه أبطو وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار iyo in codsiyadooda muslimiintu waxay rabaan in la gaarsiiyo dadka go'aanka wadanka iska leh
madaxweynihii golayaashii waddanka looga talin jiray in muslimiinta baahidoodu gaadho waxay ka cabanayaan gaadho codsigooda la gaadhsiiyo taa waa inay malahoodu u bato wa mudiirii difat alxukmi walxifaad calaa masaalixihim addiiniya waddunyawiya maslaxadooda diineed iyo adduunyo inay ilaashan karaan oo wuxuun ilaashan karaan waa in malahoodu u bato shardigaana waa mid maxay ka wadaan waxaa iskale iyadana majmuuc fiqiga iskale waxay ka wadaan haddii malaheennu u bato meeshan inaynaan faa'iide ka keenaynin oo wax maslaxo quman aynaan ka helaynin ama dhibka ka imaanaya ka qaybgalku ka badan yahay dheefta ka imaanaysa xaaladda iyadaa waa xaaraan marka masaladuna xaggee u noqonaysaa halabatu dan malaha dhanku u badan yahay waa malaha sharciga oo muxuu ahay culimmada markay masalada miisaamaan waa taqriiban daabidka saddexaadi waxa weeye ألا يترتب على مشاركة المسلم في الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه وإن يسنكرلن كقيب قلك أو مسلم كدورشوين كقيب قليو وإن ينكرلن وحكيني كرا إنو دينتي سميل كقرر التفريط إلى تفريطه في دينه إنو دينتي سكحت قدبو ميل كقرر مسألة waxaa ka wada majmaca iskale iyadana waxay ka wadaan mafaasida iimaan kartiyo masaalixda hore uga hadleen halkan waxay ka wadaan marka la galayo doorashooyinka waa in ruuxa muslimka ah uu ka fogaado waxyaalaha muharramaadka ee jaanibiga ah waxyaalo badan baa dhacaya oo ololaha doorashada dhacaya oo muxuu ahaayay kala dooranaya iyo ka dooranaya iyo يعني مثلا هذا ماشي مركان شوقنا وكله واحد أركيسا محو هاي قيلو إيو موسيق إيو رق إيو ضمر استحياء إيو محو هاي عري إيو قوانان فربضان إيو محو هاي منكرات فربضان بعد أركيسا وحيكون أنا مركان منكرات كصاص نوع سوكلا ودين هذا ضاوع وجي سنة يسقفه صاصي معنا وين هذا محو هاي هذا دين هذا ضاوع waxaa ku suurtagal ah waxaasoo munkaraad iyo aahaamta iyo dunuubta iyo munkaraadka adoon ka qayb gelin hadday kuu suuroobi karto inaad codkaaga dhiibato ama in lagu doorto taa way midda laga hadlay ayib dawaabidda iyada ah waxaa iskale saan tilmaannayba majmuc fiqi alislaami baa iskale daabidka afaraad waxaa la dhihi karaa alxadar min alictidaa cala alghayr والتسبب في فوضى وتهارج بين الأحزاب وبين القبائل إن لقدك تونادو ليسكا إلاليو إن ليسكو حد قدبو إيه إن صباب الله نقضو فوضو إيه إسكو دع أما حزبية لحظو دا أما قبائش لحظو دا إن ليسكو دعو أرنتها إيه دا وغلط صوابتو وحا كردلنا إيه مفاسد إيه آفات آن يرين با كردلنا إيه waxa lagu xadgudbayo waa ruux bini aadam ama waa muslim ama waa gaal aysan banaanayn in lagu xadgudbo ahdi iyo ballan aad ku wada nooshihiin oo aan banaanayn xoolihiisa iyo dhiigiisa in lagu xadgudbo ama waa muslim cirdigiisa iyo naftiisaba ilaahay xarimo muharramaadka waa weyn kamid marka cod baan raadinayaa ama cod baan ridayaa in aad uga qayb gasho qabaa'il islaynaya ama xisbiye islaynaya ama dad aad ugu xadgudubto ayadana maya haddaad taas ay imaanayso banaanka ka mar lianna cirdiga iyo sharafka iyo dhiigga iyo xoolaha ruuxa muslimka ah baa ilaahay agtiisa kala weyn adduunyada oo dhan kala weyn kursi xun oo muxuu ahay gaalo laga raadsanayo dhib iyo dheefkiisa laga hadlayo warkiisa iska badaa waxa adduunka dhexdiisa yaallo oo dhan ruuxa muslimka cirdigiisa iyo sharafkiisa iyo xoolihiisa iyo diintiisa ka qiimo badan inaad marka wax way ugu xadgudubto xalashaan uu iga soo horjeedaa xisbi kale uu ka tirsan yahay qabiilaan ishaynuu ka tirsan yahay oo aad sidaasi markaa doorasho ku raadisay arrintaasi arrin ayadana qalad weyn oo waay oo dawaabida loo baahan yahay in la ilaaliyo waay waxbana ku tari maayo xadgudubka aad samaynaysa aduu kugu qoran yahay ka aad dooratayna kursiga isaga tagay inaad wax calfan doontana Allahu a'lam ay yiraahdaan culimadu axmaqa ninka nacaska ee doqonka
وأنك وحيد هذان الدنيا دي سجدي أو نك للدنيا الدنيا دي سيؤجدي ودقن وحاسكسي دقن سنة إلا دقن ماذا زيك لدرني وحاسكسي دقن سنة نين دين تيسي آخر دي سيجدي أو نك للدنيا دي سيؤجدي نك لا مصلحة دي سكشغينس كرسي صاريسا ودناينيسا معاد جوبيسا دين تادي آخر دي بعد جوديس وحكان عسن أما كعقل يرمجله متعلم أهو قضي أهو خبير أهو شيخ أهو داعي أهو نعس بطا لأن هذا العقل اللي وحقرنا يسوع واحد إلى شان لا يدرس مالك رج درادود يوحن قيمة لها إن مصالح هذه دناها جماد أبو بريسين عقلك بشري كاسو كيني أرين داسنا وأرين لو بهاي إن لقيت دكتونادو قل يهن دور شوينك الله كتشيرنا أيجنا قطعا وحى محرم كأه في شرع الله تبارك وتعالى إن يكون دقائق تصرفات كيني كرا إن يؤمدوا يسكت عاد وبالشدة يسكت عاد وقواش يسكت عاد وضدك وحكلا تاجرسان يسكت عاد أيضا محرم بيكته تلابك كستو وحنا عاسي أي كرشان وحي كرش إثم جدي الدم بجدا أيجا حمباري دون أنتي ديك دادتا أنتي ديب لجيستو أنتي حول الله دعو أنتي لسكو حد جدبو أنتي لسحنتو نينك الصبابي با ميزان كي سيجلس أرنت أمريكا دينا والبوين لسكيل عليهم وحكم إذا قد ضابط كأفراد أوي هاي إن دور الشدة عن حول اللجوء بحنين حولنا اللجوء قاضنين كعد كديبي أنا وإنه صن حولك قاضنين كالله عضين أنا كرسي قربنا وإنه صن حولك بحنين لوضع بنعم أرنتاسي حرام بكته شريعة إلهي معك تسيا حديث النبي صلوات ربي وسلام عليه حكم إذا حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدح روح إلهي لما حد الله مالين قيامة من فيريو إلنا حريسيتكم الضيو من الظاهريو أمدن بدافو عذاب حنون بدن ويليه بل انت اللي يسوق دريو في رصده يا انت اللي يسوق دريو هن شباده إلهي الله اللي ماي كو إلنا حريسيتكم داي ماي لبا دنبيغا u dhaafi maayo saddex cadaab xanuun badan bay leeyihiin saddexda ayaa kamida waxa kamida wa rajulun baaya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'taahu minha waffa wa in lam yu'tihi lam yafi waxa kamida nin madaxa ballan la galay ballan inuu taageeraya oo xukunkiisa raali ka yahay xukunkiibu ku taageeraya oo gacan ku siinaya ballanta uu ninka madaxda la galayana ujeedo kale kama laha inuu adduunyo ku helo mooyee hadduu xoogaagu rabay helana ballantii waa u ilaalinaya hadduu wax ka waayana ballantii waa uga baxaya Soomaaliya waxoogaa ballanqaad been la isasiin waa la yaaci وكوردي الصوت كيبا للردي بري نينكي وحوغاغا لغا قاتay loo riday ba iimaan wixii laga rabay ba laga waayay le marka horeba adduunyo laga rabay maalinta waxaad maqlaysaa asagoo leeyahay waa tuug dhalay waligeenba waan ogaan inuu tuug yahay wareede tuug dhalay adaa meesha keenay soo moog codkan aad ridayso ayaa ninkan meesha geeyay inta dambi uu galayana waa la wadaagaysaa bal mas'alada ku tala gala codkan waa mas'uuliyad waa amaano maalinka intaad nin u rido aad ogtahay inuu san mudnayn intaad u rido meeshii aad geysay codkaagu geeyay uu khaladaad ku galo oo ummadda ka galo oo dalkeeda ka galo oo diinteeda ka galo oo dhiigeeda ka galo adigii codka lahaay meesha geey ogaana inuusan mudnayn ka fakan maysid maalinta qiyaamada mas'alada ku tala galay laba dambi oo soo saaran waa
xoolo xaraamnimo lagu qaatay iyo kursi ninaan mudnayn la geeyey iyo dembigiioo lala wadaagay intaasoo isa saaran waa meel ruux muslima marka waxaa weeye uu dooran uu muxuu ahay u badheeri kara ma waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi aakhiru zamaanka waxyaalaha imaan doona markuu ka hadlayay waxaa ka mid a bayca alxukmi in xukumka la kala gato xilka in la kala iibsado laba macnoba culimmadu way ku fasiraan in ninka maxkamadda jooga ee qaadiga ah ee garta goynaya intaad wax siisood laaluushto oo xukumkii kuu gooyo taa waa bayculxukmi xukumkii baad gadatay iibsatay ta labaadna waxa weeyaan in aad kursiga u geysood codka u siiso adduunyo daraaddeed xoolo dhaafsato middaana waa bayculxukmi xukumkiiood iibsatay waa sida laaluushka iyo iyada ayaa isku midoo isku baabbay galayaan arrintaana waa in laga digtoonaado xoolahan muxuu ahay la uruursanayo ee la qaybinayo doorashooyinka markay socdaan ama sababtooda ku imaanaya soomaaliyay waa xaaraan soomaaliyay warkaa dhegaysta xalooshiinna xaaraan ha ka dharjinina ya waa la guban la qaaday oo la guray ya oo cod la rid war maxaad ka haysaan waa kuma ninka cod uu riday xoolo uu dhaafsaday tabac ka haya waa kuma waxba lagama hayo laana marka hore oo baraka ma lahayn balaayo gubanaysa marka arrintaasi waa muhiim in la iska ilaaliyo waxaa shanaad oo daabidka shanaad uu yahay أن يختار المشارك أو المنتخب أصلح الموجودين في الأمانة والكفاءة يعني دتك دورشده أتاجن أما حلك الرما أما ما إيه هوشاسي للرما إن للسعره كوا أجرون وين دورت مركز لقى فيريو دنك أمانة ده هي دنك كرتيدا waa labada dhinac marka laga yimaado aqoonta iyo cilmiga marka laga yimaado labada shartiyo ugu asaasisan way xilka la qabto ruuxa amaanadiisa waa inuu ruux amaano leeyahay oo ummadan hantideeda mumtalakaadkeeda xoolaheeda aan ku takrifalaynin hadduu yahay nin xoolihii ummadaba cunaya ama si qaldan u isticmaalaya oo aad sidaa ku doorato dembigiisoo kala leedahay adaa meesha geey hadduu yahay nin daciif ah oo aan karti lahayn waa saalix waa nin wanaagsan waa nin alla ka cabsi leh waa nin salaada ku fiican khayrka ku fiican waaba culimaba iska dheh haddaad rabto laakiin waxa weeye laba xadhig ma kala goyn karo waa daciifu shakhsiya asagana dhankaas waa la fiirin waa inuu ruuxu karti leeyahay iyo quwa shakhsiya oo uu wax ku maamulo waddanka ku kala wado oo uu cadkiisa ku dhacsado hadduu baarlamo yahay ama wasiir yahay ama governor yahay ama senator yahay waa inuu ruux yahay quwatu shakhsiya daciif may soo nabigeennu kuma dhihin abu darow waxaan ku arkaa inaad nin daciifata daciif baa tahay xoolo agooneed xilkeeda ha qaban laba ruuxna mas-uul ha u noqon ya war abu dar madiin ahaan iyo akhlaaq ahaan buu daciif ah ya ninka isagoo saalixa oo sheekh oo khatar ah oo markuu diinta sheegahaya iyo markuu khudba jeedinayo uu dhihi wallaahi waaba kii keligii ah ayaa haddana markay xil iyo mas-uuliyad timaado waa ka duwanta saas daraaddeed labada dhinacba waa labada dhinac asaasiga waxaa laga fahmayaa qur-aanka kariimka meelo badan buu ku tilmaamay maalan nabiyullaahi yuusuf calayhi wacala nabiyina asalaatu wassalaam ninkii boqorkaa markuu lahaa xilka ii dhib wuxuu yidhi ijcalnii calaa khazaa'ini اlardi innii xafiidun caliim dhulka khasnadihiisa waa wasaaradda dhaqaalaha wasaaradda maaliyadda dhulka khasnadihiisa ii dhiiboo xilkaa ii dhiib buu ku yidhi nebi yuusuf calayhi salaam maxaa yeelay innii xafiidun ilaaliyaan ahay nin ammaano leh oo hantida caamka ilaalin baan ahay kow ta labaadna caliimun nin aqoontiilena waan ahay aqoonteediina waan leeyahay qaabka xoolaha loo maamulo
ammaanadiina waan leeyahay sidaas daraaddeed xilkan ii dhiib buu ku yidhi nabiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markii uu ninka qibtiga dilay suuratulqasas say ka warrantay oo uu dhulkii ka cararay waa kii laba dumar ah oo adhi ceel laga cabbahayo adhi meel ku horahaya ceelka agtiisa waa kii ku soo baxay maa khatubukumaa buu ku yidhi war maxaa idinku dhacay labadiinni maxaa meesha adhiga ugu haysa markaasaa waxay ku yidhaahdeen laa nasqi xataa yusdira alricaa wa abuuna shaykhun kabiir ilaa raggu intay xoolaha warawsadaan xooluhu fulaan annagu adhiga ma waraabsan karno dumar baan nahay ragga inaan dhex galno baanu diidaynaa aabbahaanna waa nin da'aho hawshaa ma qaban karo almuhim waa kii nebi muuse calayhi salaam ceelkii galay u waraabiyey adhigii gabdhaha gadaal dambe reerkii gabdhuhu ay ka dhasheenoo uu adhiga u waraabiyey waa ka la xididay labadii gabdhood mid ka mida baa aabbaheed tale u soo jeedisay waxay tidhi aabow ninkan ma u jeeda xoogga badan inoo shaqaaleen ninkan adhigaah inoo raacee inoo qabo nin la sii dayn kara maaha sababtu maxay tahy yacnii intii yareydee uu la mucaamalooday baa waxay ka dareemeen ninkan inuu nin halisaya markaasay waxay u soo jeedisay aabow ninkan inoo shaqaalee inna khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin inna khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin cid aad ijaarato ood shaqaalaysato ood hawl u dhiibato waxaa u fiican nin xoog badanoo horta hawshan qaban kara oo kartideedii leh ammaano lahoon ku khayaamaya labadiiba waayahay yaa arrintaasi sarbeeb bay ahaydoo waa middii marka dambe keentay inuu odaygii u bandhigay labada gabdhood inuu mid ka guursado sidaa waa kii ku guursaday markii dambena reerka la xididay qisadu waa dheereen ujeeddadu maxay tahay marka alqawiyu alamiin haddii ay noqoto ususka aynu wax ku dooranayno masalada aad u fiirsada ususka wax lagu dooranayo haddaynan ahayn aqoon ammaano alla ka cabsi yaa karti haddaynan noqonin ee ay meesha soo galaan ujeeddooyin kale markaasi doorashadu waa fasaadaysaa adiga niyadaa ku shaqaynayana doorashadu xaaraan bay kaa noqon sidaa waxaad ku dooratana saan sheegnayba dembiga uu galiya qaladaadkiisa qayb baad ku leedahay maalan waxaad ku dooratay isku reer baan nahay yaa soo sidaa hadda jirta ma isku reer baan nahay xataa hadduu ninka ugu xun yahay reerkaagana uu yahay reerkaaga ninka ka socda waa inaad garab istaan warkaasi war shaqaynaya ma yaa warkaasi war shaqaynaya ma reerkayga haddaad ku doorato calashaan waa reerkayga midka kale ka soo horjeedaa ka fiican waadna ogtahay inuu ka fiican yahay dalka uga fiican yahay oo dadka uga fiican yahay oo diinta uga fiican yahay adoo og inuu uga fiican yahay reer ahaan haddaad kan aad ku taageerto doorashadaaduna waa xaaraan asaga meesha aad geysiye waxaad siisay iyo wixii ka yimaadana qayb baad ku leedahay qabiil marka meel iska dhiga xisbi meel iska dhiga xisbi hebel buu ka socdaa iyo xisbi hebel buu ka socdaa meel iska dhiga gobol buu ka socdaa iyo isku deegaan baan nahay meel iska dhiga saaxiib baan nahay meel iska dhiga mas'aladu markay bannaanaanayso culimmadu ka hadlayaan waa in ay noqoto ruuxan inta aragtidayda ah daacadnimadayda ruuxani inta kursigan u taagan buu ugu rooyay markaan fiiriyo masaalixda ummadda dhinacyada ammaanada iyo awoodda iyo aqoonta wax inta taagan buu u rooyay xataa haddaan laga wada helin haddaad tidhaahdaan sheekh waxaad ka hadlaysa waabaad qarwaysaaba ya war sheekh waad qarwaysa aaway ammaano iyo kafaa iyo karti iyo muxuu ahaayey xoolaha dadkoo la iska ilaaliyo goormay ahayd taas hadday taa noqoto marka waxaa imaanaysaa siday isu dhaamaan ya say isu dhaamaan labaa wax wada dhacaya laakiin mid baa hunguri yar soo maa midna uu hunguri weyn oo wax weyn buu cantoobinaya
midna waxoogaa yaryar buu ku kaaftoomaya sax ammaanadii waa luntay soo maa laakiin inta joogtay khaa'iniinta ah ka ugu khayaano yar baan markaa ku qasbannahay waxaan ka hadlayo ma aha ra'yi ma aha waxaan ka hadlayo waa qawaaciddii shareecada waa saas daraaddeed baa hadda waxay yidhahdaan culimmadu haddii la waayo madaxweynihii shuruudda buuxin lahaa inta joogta ka ugu dhow baa la dooranaya ka ugu dhow masaladaasina waa masaladaa waa in la bedelo qaabkan hadda wax ku socdaanoo cidda wax idinka rabtaay waa inay noqoto cid istaahisha ninkaan istaahilin marka horeba waa inuusan issoo lugoynin laakiin markay noqoto qabiil iyo reer hebel iyo inadeer iyo degmo iyo wax lagu siiyo waxa masaalixdeenna burburinaya oo dhibka ina haystaay sababtoo ah taa iyada marka waad guran dhibkaad geysatay midhiisaad goosanaysa qodobka lixaadi waxa weeyaan waan soo gabagabaynayaa oo dawaabidda ka mida dadka wax dooranaya dadka qaarkood in ay doorashada galaan mafsadada ka dhalanaysaa ka badan maslaxada ku jirta si gooniya waxaan rabaa inaan u magacaabo dadka culimada ah ee ummaddu diinta ka dhagaysato ee ummadda hor jooga ee diinta u sheegaya doorasho qabaa'il iyo axsaab inay u ololeeyaan ama qayb ka noqdaan ama cod ka ridaan mafsadada iyo dhibka ka dhalanaya ka badan maslaxad iyo dheeftay keenayaan sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye ninka culimada ah ummaddiibuu u dhaxeeyaa risaaluu xambaarsan yahay diineed kana muhiimsan waxaan laysku hayoo dhan middii ka muhiimsanayd buu xambaarsan yahay maadaama uu xambaarsan yahay doorashooyinkan markuu galo qoluu garab siin qolana wuu ka hiilin soo ma qoladuu ka hiiliyey intii la socotayba sheekhnimadiisa dhulkay ku jiidayaan soo ma sanadkan markaad intaad mid ugu riddo qoladii ka soo horjeeday sheekhnimadaadii ay dhulka ku jiidaan sanadka soo socdana qolo kale ay dhulka ku jiidaan sanadka kalena qolo saddexaad dhulka ku jiidaan maalinta dambe soo sheekhnimadaadii baabiimayso miyaa la isweydiini saas daraaddeed baa waxaa dhacday qabiil qabaa'isha ka mida baa wadaadkoodii doorasho geliyay ololihii iyo doorashadii hawshii buu kala qayb galay markuu wixii la qastay yaa maalin dambey shir yeesheen markaasaa waxay yidhaahdeen nin sheekoo culimaha laynoogu yeedho masale weydiinno isagii baa is soo taagoo wuxuu yidhi anaaba sheekhe war may adugu annagaad naga tirsan tahay sheekha naloo raadiyay dheh marka waxaan leeyahay dadku ma wada aha axkaamta shareecada waxaa jirta manaasil baa kala jirta waxaa jira caamayga u bannaan oo daalibulcilmiga u bannaan oo ninka sheekha aan u bannaanayn calashaani mid walba mafaasidda ka dhalanaysaa kala duwan saas daraaddeed culimmada iyo ducaadda waxaan leeyahay maqaamka culimanimada iyo maqaamka diinta mataliddeeda ha la ilaaliyo waa kaadh loo baahan yahay in la waardiyeeyo ummadda loo ilaaliyo si ay kelimadii culimmadu ay loo maqlo oo waxay sheegayaan ummaddu u dhagaysato oo aynan u noqonin wax ay kala isticmaalaan raggaasi kuraasta raadinaya ay say doonaan ka yeelaan qodobkaasina waa qodob daruuri oo ku khaas ah dadka culimmada ummadda hor jooga ee diinta u matalaya ee ama fatwada bixinaya ama u khudbaynaya ama dacwada u jeedinaya sayna kelimadooda iyo diintay sheegayaan aysan u qasmin waxaan ku gabagabaynaya dhowr qodob qodobka koobaad qoladii codka bixinaysa baan ka hadlay qolada codka la siinayo dhowr qodob baan dhihi qodobka koobaad horta waxa weeye madaxnimada in la raadiyo sax maaha xadiidka cabdullaahi ibnu samura cabdiraxmaan ibnu samura nebigu wuxu uhi sal lla lay slam cabdiraxmaanow madaxnimaha weydiisani ha dalbin haddii lagu siiyo sidaa lagugu siiyo intaad weydiisato waa laguu xilsaari oo lagugu kaalmayn maayo haddiise lagu siiyo adoon weydiisanin ilaahay baa kuugu kaalmaynaya bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidka abu muusa alashcari sidoo kale laba nin baa u yimid nebiga sal alla alay wasalam abu muuse oo la socda waxay ku yidhi rasuulka ilaah xilalkan qaar ka mida noo dhig xilalkan aad qaybinayso qaar noo dhig
النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه حلك سيدي سوى أمدي ابن نيوي ديستي نين كد داليتونا يا أصل كائنا بردو أذر هذه سو صحبة سلدا أنا وحدي دونتان وذا ذو قرويسا هذا سوتش ذا قرويسا قرما لقيت تجيبه وارح لقيت تجيب كتجيد يدو مدينتي ولا لقيت تجيبه يا هذا يدتك قارك وضع محلك قارك لقيت تجو معناه هذا ما هي دينتي لقيت تجيب وقلت ما نبنا نروح إنه كرسي ورد اللهم ويديس كذا هالمر بين هذا العلماء وبنان تايو ومركا وتعينه أو عد يسوى كلام إذا لوايو طيب تاوامد هدي لوايا مركا هدي لوايو وقضبك إن لقاتل الديدو وكرسي والنقض إن الله يعو الله أرضو الله ضلبضم ويسكل من أين سوروبي كريني مركا وحنكون نقونينا أيها الدم بيقوض إسكالي لكن أنه كأقول ربان مركا دورانين طيب قضبك لبادي وحوي روحا قليا مامولادن قليا وإنو دينتي سوحكي يقان برلمانكا وزيرada dawladaha dhaxgalkoodu waa shaa'ig xaalada far badan baa ku qabsanaya hadaadan aqoon lahayn adigoo niyadaada iska fiicanta laga yaabaa inaad diintaadii aakhiradaada khaladaad ka gasho waxa leeyahay marka dadka xilalka qabanaya ama doorasho galay waa in ay diintooda aqoon u leeyihiin haddaynan aqoon lahayn waa inay culimada aqoonta leh ku xidhan yihiin wixii tilaabay qaadayaan waa inay iska hubsadaan oo culimada weydiiyaan arintaas ay ila soo daristay maxay diintu ka qabtaa shardiga hadii la waayo iska qastaan waxa dhici karaysa adigoo xubin baarlamaan ah oo muslimiinta matalaya haddana inaad gaalnimo ku dhacdo waa wax suurtagal ah waxaan leeyahay markaa haddaydan aqoonteedii lahayn culimada ka tala qaata oo tilaabadaad qaadaysaan bal la soo laabto diinta ka hubsada insha Allah ta'ala qodobka saddexaad ee dhihila wax weeyaan meel kasto dawladda ka gashaan waa inuu noqdo inaad xaq u hiilisaan oo cadaaladda garab istaagtaan oo idan baadil garab istaag cadaaladaasi shacabka oo dhan ha wada lahaado muslimiinta gooni ha ku ahaado cadaaladda iyo xaq waa inuu ruuxa muslimka mar walba garab siiyo dulmigana uu ka hortago qodobka iigu dambeeya wax weeyaan mas'alada xalaalay tashriica waxa la yiraahdaa golayaasha sharci dejinta la yiraahdaa khaasatan iyo golaha sanadka iyo dadka galaya oo shuruucda dejinaya wadanka lagu maamulayo shuruucda aad ka qayb qaadanaysid u codaynayso waa inaynan ka hor iimaanin shariicada Ilaahay waa mas'aladii aan lahaa waxay taabanaysaa shariicada beerkeeda iyo dhuuxeeda ay taabanaysaa xaq Ilaahay leeyahay waaye jidaynta xalaalaynta iyo xaraamaynta sidaas daraadeed haday baarlamaanka timaado kaba soo qaad khamrada hal xalaaleeyo xubinka baarlamaan ee muslim ee baarlamaanka ku jiray waa inuu ka hor yimaado asaga cod hal lagaga bato marka damaad uu rabo laakiin waa inuu mowqifkiisa uu istaago maya ilaan inta umma tabartiisa Soomaa fattaqullah masada awoodiisu wax weeyaan waa inuu yiraahdo maya dagaalamo Soomaa qaadka ummadda laga qabtaa timid xubin baarlamaan oo muslimaad qaadka muslimiintu ha cuntaad garab siinaysa haloo daayo waa qalanta qaadku waa xaraam waa inaad joojintiisa ka shaqayso zinada iyo xaaraanta iyo waxyaalaha fawaaxishta iyo markay timaado xalaaleyn iyo xaraamayn baabka ku saabsan muslim baa tahay shariicadaadu waa inay ku qabato waa sanad baan ahay shariicada kama dambe xubin baarlamaan baan ahay shariicadii maada ka tilaabsan waa inaad meel walba joogto wasiir baa tahay dawlad muxuu ahay yaani wax weey wasaarad baad haysaa waa in wixii diintaada ka hor iimaanaya inta tabartaada aad iska ilaaliso ummadana ka ilaaliso salada waa in la qeexo si cad u cadahay haddii kale waxaa dhacaysa ma jirto walaalayaal wax la yiraahdo ruuxa muslimka ah xilli waxaa jira shariicada uu ka gudbo oo in shariicadu qabanin hadduu madaxweynaha shariicadu waa qabanaysa sooma لكن فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أنت أود هذا أبا الرباء إن هذا هوشا كسميسو وآذن حاران
إلهي حرمين حلالين تيدا آذن عدك ديبنين حلال إلهي حلالي حرامين تيدا آذن عدك يالنين بل أرنتا إناد كهر تمادو وحدي تمادو شروع ذاك ليه ودن كاللغو مامولا يدم ملا شروع حاجة اللود داي بن آدم كاجتهاد كيس شروع ذا مثلا نظامين تا مثلا مقالوين كا ودوين كا سيستم كاللغو كلا الصعودو شروع ذا النوع عصو كلا وحي أصلحة إيه مركب بالشدة النول يوقتي كذا أصلح وقع إذو أركتاد مركب كعد ديبنيس لأن حلالين يا حرامين معه والنظام اللي هي وآدميه أوباهي وضلك أوباهي وضدك أودا باهي نظام كاسو كلا مركب دمارة لكن وحي الشريعة الطابانية وإن لسك إلاليو إنتاسي أيام كوكا بقبين يا وقت كاسك كوبنا كمحاضرة دي أهيد الضوابط الشرعية في الانتخابات والتصويت وحي آن أصيبني إلهي فضل قوي وحي أن قلدنينا إلهي نضع هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم